أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درسينني وحو كبلاميا آية بقول إيشان إيصدناد كان مد سورة النساء. رب سبحانه وتعالى markuu inoo soo cadeeyey in haweenkii loo wanaag falo, in loo cadaalad falo, habdhaqanka lagula dhaqmayo, markuu ilaahay ka warramay cadaaladii qoyska amba guriga oo ah haweenaydii ninkuu markaasi la wadaagayay nolosha inuu u cadaalad falo. hadday dhowr dumara yihiinna inuu dhowrkaa dumara uu ku simo guriga iyo gogosha iyo masruufka iyo mariinka wixii xuquuqay lahaayeen inuu ugu wada cadaalad falo ayuu rabbi ina soo amray. markaasaa rabbi wuxuu yidhi marna awoodi maysaan inaad cadaaladdaa buuxisaan oo dhammaystirtaan ragow ee hawada iilanina uun iilasho dhammaanteed isjira. ilaahay wuxuu idiin qaban cadaalad xumada wuu idiin qaban doonaad haweenka ku dhaqaysaan ilaa ta qalbiga ah taa ilaahay wuu idiin dhaafaya. oo hadduu qalbigii midkood iska jeclaado ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbiga maadaamaanu addoonku isagu maamulin oonu shaqo ku lahayn oo awooddiisa ay ka baxsan tahay ilaahay taa u qaban maayo, laakiin intii kale u garsoor fala. markii arrintaa laga soo warramay halkanna waxaa lagaga warramayaa cadaaladdii guud ahaaneed dhammaan axkaamta oo dhan iyo unka oo dhan. bulshadii amba ummaddii amba dadweynihiina inaad u cadaalad fashaan baa laydinka rabaa buu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala. maraggii iyo markhaatigii aad furayseenna inaad sida ugu qurux badan ee ugu fiican aad u guddaan ayaa la idin fari. maraggaas aad markhaati furaysaan ilaahay wuxuu leeyahay cadaaladdiisa ogaada, ilaahay dartii maragga u fura. qofkan markhaatiga kaa dhiganayo amba kanaad ku marag furaysaan waxba ha eegina buu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala. war ilaahay baa ka weyn, ilaahay dartii maragga u fura buu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala. laba midun bayt nin baa ku soo kaxaystay, adigiibu arrinku geliyey, markhaatuu kaa dhigtay,
horta marka koowaad waxaad ogaataa waa ay cidaad u marag furaysa ilaahay dartii weey ilaahay dartii u marag fur ilaahay markhaatiga u buuxiye buu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala markaasaa rabbi halkan wuxuu ina amri u leeyahay mu'miniin ilaahay wuxuu idin farayaa inaad had iyo jeer cadaalad u taagnaataan garsoor iyo xaqsiin iyo qof walba ixtiraam iyo maamuus iyo xaqiisood u buuxisaan inaad u sara joogtaan buu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala haddii markhaatiyaal aad furaysaanna ilaahay maragga u buuxiya ilaahay baa maragga leh maraggan aad furayso amba markhaatigan aad furayso horta ilaahay bay u ahaatay ilaahay baad u buuxin cid walba ilaahay ka horraysay walow naftaada ha noqoto amaba labadii ku dhashay ha noqoto ama xigtadaadii dadku ugu xigtay ha noqoto maragga ilaahay u oogo intaaba iska dhaaf buu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala adigii baa lagu qabsaday arrin baa lagu qabsado waa lagu haystaa marag baa lagu leeyahay fur ilaahay wuxuu ku leeyahay naftaada ku fur oo waa maxay waa aliqraar baa laga rabaa aliqraar qiro dembigii aad gashay iyo inaad arrintaa lahayd adigu qiro oo waxaad tidhahdaa sida uu ninkaasi sheegaya waa runtii anaa ka markhaatiyo anaa arrintaa qabadhe qira buu ku leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala waalidkii hadday ti waa inaanad odhan ma aab baan ku markhaati furi ma hooye macaan baan ku markhaati furi ma ciddii isoo korisay baan marag may waxba maa iska daa ka meerayso may iyaga ku marag fur buu ku leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala sababtoo maxay ilaahay baa ka horeeya ilaahay baana maragga leh xataa labadaadii waalid hadday tahay markhaatiga ku buuxi buu ku leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala xigtadaadii dadku ugu xigtay abti lahayd adeer lahayd sodog lahayd sodoh lahayd waxaa isku wada hareeraysan oo dhan cidna ha u aabba yeelin maragga halkiisa mari buu ku leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala aye bal ka waran arrimahaas ilaahay wuxuu aayadda ku soo qaaday arrin kaloo cajiiba had iyo jeer maxaa markhaatiga qalloociya sababaha u badan waxaa ka mid ah ninkan baaba nin lagu marag furaba ahaynoo waa odaygii reeraha waa nin weyn wey markaa ninkaa weyn inaad ku markhaati furtid waa ceeb wey mayana asbaabaha loo diiday waxaa ka mid a ninku lacag buu leeyahy oo de ninkaa lacagta leh lacagtiisaasaad ugu eexanaysaayo bilee berri wax ku tar amba wax kuu qadhiidh amba wax wadata kugu caawi yacni mustaqbalkaad eegaysaa markaasaa waxaad leedahay may iska ka meeraysa markhaatigoo ka hoos qaado ha ku marag furin waxaa la arkaa ninku derajo iyo mansab uu leeyahy waaba sheefkii iyo ninkii madaxda uu ku dallacsiinba berri haddaad laakiin maanta markhaatiga ku caddaysid berri toola cadow uu kuu noqonaya markaa ka meerayso ha ku markhaati furin markaasaad leedahay markaa maad ogeed arrinta arrin aad u soo joogtay ilaa ninkii kaa sarreeye sheefkii bay noqotay markaa madaxdaadi kuma dhacaysid waxaa keenaa waa waxa ilaahay wuxuu ku leeyahy ha u eegina sidaa dhinaca kalea suuragal ah kuwo kaloo iyaguna waxaa jira asbaabta la yskugu naxariisto faqiir waxaad leedahay bal ninkan lacag bu ilaahay siiye muxuu miskiinka yar kaga tacadiyaya labadiiba maxkamadiiba mid laga laalaadaad arkay oo ninkii lacagta ka laalaado markaa unbaad xukun amba ninkii derajada sarreeyaaba nin haystaa inaad eegi weydo mayse kan faqiirka ma edab darayi muu gar darayi ma isagaa qalloocan ilaahay bar sharcigiisa u fiirsa faqiirnimo ha u eegin ma aha naxariis inaad tidhaahid ninku waa faqiiroo isagun baaba la miidhaya amba la xoogaya amba laga itaal batay deetaanu ku marag furi maayo ma miskiinka waaba sidii kale u baktiyayaaba maya kaa lacagta le inaad aragtoo tidhaahid kolle kan miskiinkunbuu iska dulmiyaya kaa derajada le inaad tidhaahid kolle awood buu u sheeganayaa ilahay wuxuu ku leey war waxaa iska daaya asbaabta keenta waa waxyaalahaasi mid baa u fiirsanina amba ninku xoola ha haysto ama magac ha yeesho amba derajo ha yeesho amba faqiir ha noqdo amba sheekh ha noqdo amba shariif ha noqdo wuxuu doona ha noqdo waxa uu yahay isaga ay ha eegin buu ku leey rabbi subxaanahu wa tacaala ee ilaahay dartii maragga u dhammaystir qaala tacaala rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyihi yaa ayuha aladiina aamanuu war dadka mu'miniintae iimaanka lahow kuunuu waxaad ahaatiin qawaamiina kuwa u
التاجنا بدن بالقسط قرصور إيا عدالة شهداء كوا مرقيال لله إله درتي لوجه الله كوا أمر خاتية نقضب لرب سبحانه وتعالى ولو هباء هذا وحلقوا مرق فري على أنفسكم نفيهين أو الوالدين أن باللبادي إذن دا شيء إيا والأقربين حكتديني ددكو قدوي إن يكن هدوي هاي كانت مخراتية كفريسا غنيا مد هدن أو حول هايستا أو فقيرا أن بوي هاي مد عيد هاو إيجينا قنيني مديس أو براد وحكاية ردبال اللي فيها أوران أن بفقير نمديس هاو قلنا حريصانينا أو وابا مسكينة محاد مسكين كاكاقبو حينها أورانين فالله الله أي أولا أحق نمبضا إن لو مرق فرو بهما اللي بدو دو إلهي بأوغا حق نمالي مرق إلهي بالي مرخاتيق إلهي بالي فالله الله أي أولا مذن بهما اللي بدو دو إلهي با كم مذن إن المرق أفرتاب لرب سبحانه وتعالى مركعدو بالدور نفت هذا والد كي كود علي حكت هذه نين الدرجير ينبا مقعير ينبا حولير كو إلى شنيسيد مد فقير نمية مسكين نما أدقو توليسيد أنبا إلهي إيقابو كله رب سبحانه وتعالى إلهي درتي أبوحية وحارين خرين بيسوردن إيه مرخاتي حمدا كينيسا عدالة درده وحويان وقفك أو دريمي وايو وأي عد أمرك فريا إلهي عكولي شهداء لله إلهي درتي بعد مرخاتي لتبلي رب سبحانه وتعالى هذيك هذه لقوه يارو وأرين وحلقا ويديو سيدي أدو أركيسي هيدون أمرك فربوك لي رب سبحانه وتعالى سيدي هيدون أمرك وحناها كبيرسن وحناها كتري هدانا أوغين مؤوغي هداد أكتا إنت أكتون شاك ما هنت أدو كدح فهميس ما هنت السادة أدو أركيسي ما ها أدو السادة محنيستي مرق ووحي أد أركيسي وحي أد أركيسي بعد فريس مركا إلهي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا وردتك مؤمنين تي إيمانك له إن لغانا إن الله الله كونوا هذا قوامين كوا أتاقني بضان أتاقن بالقسط عدالة هذه يشار قوامين كوا أتاقن نغضة بالقسط عدالة يعني إقامة العدل واحد نقطان عدالة دبوحين تيدون أتاقنا هذا قرصور إيا حقسين أتاقنا هذا أضي باطاي أضي هداتاي أرين كستود قليسين إيه حقلين عدالة أنكو أقبلوا لي هداد قادتاي إيه حقلين عدالة أنكو أقبل وحي عديك كالوما وحي عديك كابا إيه كاحو ماذا هداد إلهي درتي أدداشد إلهي أتربوك قصيني لبادي قفات لقيستي وادو قرنقضي إله باكو أقول لله باطاي هداد أصيبتنا أتر بعض لذي لما أتر بعض لذي هداد أسيبي ويدنا أتر بعض لذي إلا هذا وحبا ما ذهم بين وحبا ما ريبين أذو مركا إلهي واحد نقطان كوا عدالة التاجن شهداء كوا مرقا نقضة لله إلهي الدرتي وأبو رب سبحانه وتعالى إذن كون عدنا عليه سنين عدنا وإيحانين ولو هبا نقضة وحلقوا مرق فري على أنفسكم نفيه إنها النقضة وحديقة كل باتوني هالنقضة وهذا كيف فكرنا هورنن وردوا اسكو عديسين ما هاد عد بعد سقاويني اسك دفاع باش اسك ديره ما انا ما قبو هورنن واحد ترى روح الله اسكو هايستو اوردن هبلنا ما قبه هبلنا ما قبه انا بيدي هذا مرخاتي لغو هيسي سوما مرقين واحد ميل كلا لغو تومي إلهي وحليه أدوه هيسورن ما أنا يسقاونيه ولو على أنفسكم نفيه نبها النقض برب سبحانه وتعالى اسكم مرق فرع ربوا عليه أو الوالدين أما ولو هبا النقض أو الوالدين اللي بدي إذن ده شيء آبئي هوي إيا والأقربين حكتدي نبو رب سبحانه وتعالى إلهي وحليه عدالة فلا وإلهي مرخاتيك أبوحية إن يكن هدويه غنيا هضا كمرق فرع إن يكن هدويه قنيا مذ هضنا أو حول له أو أما فقيرا مذ عيد أو وحبه هيسن فالله الله
ayaa awlaa ka mudan inaad ka qaniga u habrataan miskiinkana u naxariisataan fallaahu allah baa awlaa ka mudan bihimaa labadooda buli rabbi subxaanahu wa tacaala oo inaad tiraa warkana waaba miskiina naga daa waxba ku marag furi mayne amba aad tiraahidkani waa qaniyo berri toolaan waan u habranayaayo dee rag waa meel xunjoog buu ku leeyahy waan iska ilaalinaya amba darajo ama magac buu leeyahy may ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahy ilaahay baa ka mudan inaad maragga buuxisaana buuxiya falaa tattabicu ha raacina alhawaa hawadiinna ha raacina naftiinnu say jeceshay ha raacinoo ha ka raacina an tacdiluu inaad cadaalad fashaan ilahay wuxuu leeyahy hawadiinna iyo naftiinnu siday jeclaysanayso ha ka raacina inaad cadaalad fashaan oo waa maxay ninku waa tolkay ku markhaati furi maayo maya ninkani waxa weeye waxbuu isoo taray ninkani mayane waa ninaan wax ka rajaynayo waa hawadaadii weeye mayane waa naftaadu say jeclaydoo oo waaba miskiin haddaan miskiinka kala baxsado kani muxuu xoolaha u noqoni mee miskiin maxaan kaga buuxini reerkiisaa caydhoobi doona isagaa faqri ku dhici doona balaayaa ku dhici ilaahay wuxuu leeyahy war waxaasi waa hawadiinna waxaasi waxba kama jiraan sideeda markhaatiga u ooga buli rabbi subxaanahu wa tacaala soo nagamaad arag mid baa uu ku imanaya wuxuu ku leeyahy ninun baa wixiiba san buu u laaqayaa shaqadiioo jeebaduu ka buuxsanayaanbu wax kaluu samaynayaayo haddaan ku marag furan ku caddeeyana miskiinka ayr hadhow ubadki iyo wixii baa wada bilaabiil noqon doona buu leeyahy ilahay wuxuu ku leey aday kuu taallaa taasi waa hawo waa say naftaadu jeclayd wey inaad cadaalad fashaan say naftaadu jeceshay ha ka yeelin buu ku leeyay rabbi subxaanahu wa tacaala cadaaladdan bay ku jirtaa in qofka loo garsooro xaqiisa la mariyo waajibkiisa inuu helo sidaa baa toosan buu leey rabbi subxaanahu wa tacaala aduu waxbaad suuraysan waxbaa kula qumanaan waxa ay kula qumantahay cadaalad darre hadday keenayso ka tag buu leey rabbi subxaanahu wa tacaala bal u fiirsa ayda falaa tattabicu ha raacina alhawa naftiinnu waxay jeclaysato maankiinnu wuxuu arko ha raacinoo ha ka raacina an tacdiluu inaad cadaalad fashaan buu leey rabbi subxaanahu wa tacaala ama ha raacina makhaafata cabsi aad ka cabsanaysaan awgeed an tacdiluu inaad u cadaalad fashaan dadka buu leey rabbi subxaanahu wa tacaala wain talwuu inaad laabataan ood qalooc inaad wain talwuu inaad laabtaan ood qalloocisaan maraggii iyo cadaaladii aw tucriduu amba aad ka jeedsataan iska ilaaliya buli rabbi subxaanahu wa tacaala egtii bay ku xidhantay an tacdilu bay ku xidhantay rabbi wuxuu leey falaa tattabicu ha raacina alhawa maankiinu siduu rabo oo ha ka dooranina an tacdiluu inaad cadaalad fashaan wain talwuu inaad laabataan oo aad ka laabataan xaqiiqadii iyo xaqii amaba aad si qalloocsan aad samaysaan aw amaba tucridu aad ka jeedsataan ha yeelina buli rabbi subxaanahu wa tacaala hale faina allaha allah kaana waxa waaday bimaa kii tacmaluuna aad samaynaysaan khabiiran alla gun og oo xogogaala ayuu ahaaday aayadda micnaheedu waxa weeye wain talwi ay wain talwuu alsinatakum haddaad carabkiina ku laabtaan saabaa quman inaynu jumladaba bilowno rabbi wuxuu leeyahy wain talwuu inaad laabtaan ood maraggii carabkiina ku laabtaan amaba aad qalloocisaan aw tucriduu amba aad ka jeedsataan markhaati furkii inaad siduu ahaa u oogtaan faina allaha allah kaana waxa waaday bimaa kii tacmaluuna aad samaynaysaan khabiiran mid xogogaala oo la socda ayuu ahaaday rabbi subxaanahu wa tacaala oo guntiisa og markaa rabbi wuxuu leeyahy haddaad jeedsataan ood maraggu siduu ahaa u furi weydaan layigu waxa weeye waa laabista carabka wax lagu laabee lagu qari marka hadalkii baad dalab u yeelaysaan hadalkii baad qalloocinaysan hadalkii baad siduu ahaa si aan ahayn baad u dhigaysaa markhaatigii baad kharibaysaa markaa rabbi wuxuu leeyahy wain talwu waxba maaha
haddaad carabkii ku laabtaan hadalkii ood qalloocisaan aw tucridu amba aad ka jeedsataanba ood iska diidaan maragga inaad sidiisa u furtaan ogaada fa ina allaha allah kaana waxa waaday bimaa kii tacmaluuna aad samaynaysaan khabiiran alla gun og oo xoogaala inuu yahay ogaada buli rabbi subxaanahu wa tacaala maxaa ka dhalan doona ilaahay wuu idinka abaalmarin doonaa subxaanahu wa tacaala aayaddu maxayna baraysa cadaalad bayna baraysa bal qur-aanka u fiirso intuu cadaalad ina faraya eeg garsoor intuu ina baraya eeg nebigeenna maxameda sala allahu calayhi wasalam maalintii uu geeriyoonayey saxaabadiisii oo jecel baa ku hareeraysnaa cid walba ka jeclaa naftooda xataa ka jeclaa wuu sakaraadayaa kolba baaldiye biyuu isku rogayaa xumad iyo kulayl awgeed wuu yacni nebigu waxa weeye markaasaa wuxuu leeyahy ilaahuw sakaraatulmowdka iga khafiifi haddana saxaabadii buu leeyahy waa nin alliyaalo ninkii aan waxu geysto waa kan jidhkaygii maanta iyo dhabarkaygii kaale iga goosa buu leeyay nebigu sala allahu calayh wasalam ma doonaya maalinta qiyaame inuu nin isagiioo i haysto un dulmiyey uu isoo sheegtay buu nebigu sala allahu calayh wasalam waar imanka iga goosta waa nebi maxamed sala allahu calayh wasalam isagiioo xabiibkii macaanaaya gaalkii ku xadgudbay u saamaxaya u dhaafayey ayaa haddana le hadday ninuu wax igaga tagtayo war kaale xaqaaga iga qaada buu leeyay nebigu sala allahu calayh wasalam jidhkayga waa kane kaale imanka haddaan ku garaacay garaac haddaan ku caayay i cay haddaan dhib kuu geystay dhibtii gooso saasuu leey nebigu sala allahu calayh wasalam eega qofka mu'minka ah waa inuu had iyo jeer xaqiiqada ku taagnaado innaga waxaa suuragala eeg caadifada qur-aanku wuxuu diidayaa hawada hawadu waa maxay waa si adigu jeceshay gaal iyo muslim hadday isashkataynayaan waxaad jeceshay inuu muslimku guulaysto jeclo waa sax laakiin dee baadil ha ku gargaarinoo adigu ha eexan nin gaala iyo nin muslimaa iska laalaada cadaalad fal gaalka xaqiisa see waxaad tidhahdaa hadduu kani wax dhacayo war ninkan baa dhacaya dhe waxaa la diidayaa caatifo hawaa la diidaya xaqu siduu ahaa un u sheeg siduu ahaa unu buuxi buu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala in yar inaad qalloocisood beddesho lama rabo haye innagana bal ka waran waxaynaan ogeyn baan wada markhaati furayna nin la yska kaxaysta on miyaad aragta oo la leeyahay hebelow kaale markhaati ii noqo eeg agteenna hadduu diiday ceeb baa loo arkaya war waxaanad ogeyn haddii lagu geliyo ma ogidhe eeg ummaddu maraggaagan waxbaad xaqiijisay caddaaladdii baad wareerisay xaqii bini aadmigaad khalkhalgelisay adigii baa dhib keenaya waa kaarkaagaa wey iska xejiso waxaad ogtood markhaati ka noqo gurigaaga iyo wixii aad u joogtay iyo ciddii aad markhaati u ahayd iyo ciddaa u fur waxaanad garanaya hebelowna mari un waar ma ogidhe waadiga arkay dhaxal baad arkiyo ninaan waxbaba ka ogeyn baa hebel iyo hebel baa laa wixii loo sheego maya ilahay wuxuu ku leeyay wax walba adigu ilaahay baa markhaati gale sidiisa u og haddaanad ogeyn ma garanayo ceeb maaha ku kaloo garanayaa iska doondootade dhib ma aha marka had iyo jeer walow calaa anfusikum baa leey nafiinaba ha noqoto maragga adigu isku buuxi haddaad aragta baasha inay cakiratoy adkaatay waar iska qiro ilahay wuxuu leeyay saa baa kuu toosan iqraar samee nin baa sinaystay nebigu u yimid wuxuu rasuulka ilah hallayga jaro gabadh baa sinaysatay waxay tiri rasuulka ilah hallayga jaro eeg dadku say u qiranayeen way hor imanayeen naag baa waxadday waa faadima almakhsuumiya waxay ka dhalatay reen laandheero ah sidaad odhan jirtee laandheere nimankii carabtae laandheeraha bay ka dhalatay weliba raggii quraysh dagaalgeliyeyaashaa bay ka dhalatay waa abijahal iyo abi sufyaan iyo reeraha bay ka soo jeedaan naagtii waxa yar ceeb noqotay iyadoo reerkii caanka ee sharafta badnaaya in gacanta la gooyo waxbay xadday marka haddii gacanta la gooyo waa yar ceeb ayay yidhaahdeen ilaan wax kaa hadhaya maaho gacantan go-anu mar walba waxaa la odhanaya waa tii maalintii gacanta lagu gooyey iyadii ceeb bay ifka ku noolaanaysaa reerkoodii ceeb buu ku noqonayaa warda kuwan waa reerihii habloodu ay waxadi jireen baa meesha u taalla
waxbay xisaabiyeen markaa way naagtan si aan gacanta loo jarin aynu maanta ku tutuusan waa la isa soo urursado waa la rogrogo waxa la yidhi nebi maxamed waa cadaaladii oo socoto yaa ku dhici karo arrintaa u sharxi kara sidii loo soo waday baa la yidhi wax kaloo nebiga wax ka dhaadhicin karaa ma jire usaama ibnu zayd inankiisa oon halla keenay usaama ibnu zaydna waa xibu rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam waa nebiga ilmihiisii wey oo waa maxay haweenaydii nebiga soo korisay markay hooyadii dhimatay ka bacdi qaadatay ummu ayman baa dhashay horta laba sayd ibnulxaaris baa dhalayoo saydna nebigu intuu soo koriyey yaraantiisa isagoo addoona inta la siiyuu xoreeyey ayuu koriyey markaasaa nebigu sayd ibnu maxamed buu u bixiyey ilaahay uu yihi nin walba ilmihiisa ugu yeedhay ilmihiisii buu ahayo jaahiliyadii sayd ibnu maxamed buu ahaa markii la yidhi ilmo walba aabbihiisa ugu yeedha ilmana aabbihiisa abbaan in looguma yeedhi karo ayuu aabbihi u celiyey nebiga sala allahu alayh wasalam baa jeclaa waxay dhahdeen usaama oo nebigu aabbihiina uu koriyey isagana haweenaydii soo korisaba ay dhashay oo nebigu sidee u jecel yahay usaamoo yar aynu u diraan waxa usaamow nebiga la hadalo waxaad tidhahdaa gabadhan inaga da' xaggan iyo xaggan buu nebiga ka maro nebigu la hadlay nebigu wuxuu ku yihi u fiirso atashfac fii xaddin min xuduud illah usaamow ma waxaad gaadhay ilaahay xeer uu dhigay iyo arrin uu sharciyeeye xad uu gooyey yacni waxa weeye inaad adigu ka ergeysid ma halkaa baad isla gaadhay ilaahay xuduuddiisa inaad ka ergeysid ood si kale u qallibtid ma halkaa baad isla gaadhay buu nebigu sala allahu alayh wasalam intuu canaantay uu ninkii yaraana madoobaaday uu nebigu mimbarkii buu fuulay dadkii oo dhan buu yidhi dhegaysta buu ummadihii idinka idinka horreeyey waxaa lagu rogay hadduu nin qaniya oo xoolole amba magacli waxado way iska dayn jireen hadduu nin miskiini waxadana miskiinka ayay gacanta goyn jireen saa buu ilaahay ku rogay ma waxaad leedihi naagtan daayo miskiinkana ha lagu fuliyo axkaamta ka waxaystanayaan lagu fulin ilaah baan ku dhaartaye hadday faadima bintu muxamed tahayna gacanta waan jarayaa buu nebigu sala allahu alayh wasalam eeg waa cadaalad dadka waa sawaasiya taasi sharaf bay leedahay cadaaladdii waxay leedahay qiimigaa bay leedahay markaa nebigu wuxuu leeyahay saa buu cadaalad falay ilaahay baa la hadloo leh cadaalad ogaada innagana inay cadaalad falno wey waayo naftaada u cadaalad horta adu iskaga bilow dadka ha dulmin ha ku xadgudbin laba haddii lagugu qabtay iska qiro baash iska qiro bini aadmi baa tahay saddex kuwii xigtada aabbiyo hooye hadday tahay ku marag fur ku buuxi hadday qaldayin oo wax lagaa weydiiyo xigtadii hadday tahay ku marag fur ninkani waa qani iyo ninkani waa faqiir midna ha yeelin ilaahay qiimee buu ku leeyay rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay markuu intaa tilmaamay halkana rabbi subxaanahu wa tacaala arrin kale ayuu inoo tilmaamaya aayaadkan ilaahay wuxuu tilmaamayaa niman munaafiqiin la yidhaah iyo gaalo iyo aayaadka dambaba munaafaqu waa maxay waa qof uurka gaalow qaba islaamnimana wuu muujisanayaa wuu ku hadhaaqayaa wuu ku dhawaaqayaa guuxa hoosta ka baxaya reemkiisuna waa munaafiqnimo waa gaalnimo asalba iimaankani yastaad wayanqus iimaanku wuuna siyaadaa uu nuqsaamaa hadduu wixii xoojinayay ku bato oo daacada badisid oo dikriga badisid ood awaamirta ilaahay fulintiisa badisid iimaankaagu wuu siyaadaya haddaad macaasida iyo dunuubta badsatidna iimaankaaga wuu dhaadhacaya eeg iimaanka waa yasiid wayanqus waa daraja u kacaya kolba wixii adigu aad gelisidun wey markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahy waar iimaankiina ilaashada la leeyahy markaasaa iimaanka bal u fiirsan niman munaafiqiina laga warramayaayo iimaan bay ku dhawaaqan haddana way ka bixi way gaaloobi haddana iimaan bay ku dhawaaqan haddana way gaaloobi haddana saan bay u wadayaan ilahay wuxuu leeyahy kuwa ilaahay u dembi dhaafi maayo iyagu dantoodun bay elanaya waa niman danaystayaala islaamnimada hadday dan ugu jirtana islaamnimaday la wadayaan hadday ka hor timaaday xagga gaalnimada jirtana gaalnimaday raacayaan way midabaynayaan buu lehy rabbi subxaanahu wa tacaala qaala tacaala rabbi wuxuu ley yaa ayuha aladiina aamanuu war dadka mu'miniinta ee iimaanka lahow
آمنوا رمي بالله إلهي يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تا إيمانك له آمنوا رمي بالله إلهي ورسولي رسول كي سنة رمي والكتاب كتاب كي رمي الذي كي نزل إله كسود الدجناي على رسول كيسا والكتاب كتبتنا الرمية الذي كتبتي أنزل أسودتي من قبل هري قرآن كورتي ومن أحدك يكفر بيني بالله إلهي كقالوبة إيا وملائكتي ملائكتيس إيا وكتبي كتبتيس إيا ورسولي رسوشيس كقالوبة إيا واليوم الآخر ما لنت الضنبئ آخره فقد وحادبا ضل إنو لمي ضلالا بادي بعيدا دير بولي سبحانه وتعالى وفقادي إن الذين وحي آمنوا على الرمي ثم هدنا كفروا قالوا بي ثم هدنا آمنوا على الرمي ثم هدنا كفروا قالوا بي ثم دينا استادوا كرر صدي كفرا قال نمو لم يكن الله إلهي ما أهان ليغفر لهم مد أدن بدافيا ولا ليهديهم مد كهانونين ينا معها سبيلا ضو يجد إلهيكم هانونين أيو بشري نبي الله واحد كفرح جلسة واحد ورنتا المنافقين كوا أورك قالوا يدا بأن لهم إن إليين عذابا عذاب كاسو أليما وحنونيا الذين كوي ويأورك قالوا يدو يتخذون يلني الكافرين قال ذا أولياء طل يقعل يحقتو من دون المؤمنين مؤمنين تكسكوا أيبتغون ما وحي كد البيان عندهم أكتوذا العزة الشرف يا ماموس يا كرامه فإن العزة شرفت يا ماموس يا كرامه لله إلهي بي وأهاتي جميعا إذيل كيد بلي رب سبحانه وتعالى إلهي آتكم وحكوت المامي أرنت آتكم عجيبك بدن بوكوت المامي وحليه كو إيمان بإنه فري إيق آيات بلو فرس مؤمن بالله دواق يا أيها الذين آمنوا وردتك مؤمنين تا إيمانك لو هي آمنوا رمي بلي رب سبحانه وتعالى إيمان بالله ياري رمي نوال ليه الحكمة دا كترتا انت إليك تايك إلهي وحكو دواقي إيمان ماشو تكرار معها العليل معها وحال ليه آمنوا رمي معنى إيمانك نكرر صدا كد دائما حجستا وحي لم يتاي اهدنا الصراط المستقيم صراط دينا وكترنا وهانون يتوصنان إلهي الله نمد أيان هدنا لنا اهدنا الصراط المستقيم إلهي وجدك توصلنا وهانون واسدي آمنوا رمي إيمانك دائما إيمانك حجية إيمانك كسونادا إلى إيمانك بعد نقصامية وكامرا وكادمان بل أدوك بالله عليك اسكو فيرسو ما اسكو ميد باتي حالة داك مالين واد كعسنتي مالين واد هردا مالين إيمانك النور باكا بحي تضبادنا ويكا بختيسا إلا بني آدم أنه ضعيف باني الشيطان بعدين أعول بكا قليا وكروغيا وكلاقيا وكوريرينيا الباب بدن بوكو بلقيا ورير بوكو فريا وعدو قاقو كل بس هذا قد دبالته مر وحويان ذكري إيا ضاعدي إيا واحد يعني إله إيمانك يساد حوجزي والنور يسا مرة باش ويكا باهيزا واد بسريو بيسا مركا سبح البكا بايلهايا مركا إله يسابوا لي آمنوا إيمانك نجديدية نبي يقول الحديث صلى الله عليه وسلم صحابته كوري شددوا إيمانكم والإيمانك نعسبونيسية بالنبي صلى الله عليه وسلم سو مؤمنين ما تيدين شددوا إيمانكم إيمانك نعسبونيسية ويا رسولك إلهي وسدان إيمانك كنت شديدنا ويقول أكثروا من قول لا إله إلا الله واحد بطسطان كلمة التوحيد كبطسط بالنبي صلى الله عليه وسلم إلهي حسك الحسيسان إيه الشهادة بطسط بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني إيمانك باتسيدينيسا قرقوا مركوا باليو كل بوان رنشينا وان قلوا فرنا وان قرحنا
iimaankaaga jadiidi baa lagu leeyahy jadiidi markaasaa nebigu xadiis kale wuxuu ihi ina aliimaana layakhlaq iimaanku wuu baaliyooba layakhlaq wuu baaliyoobaa siduu calalku amba maradu ay u baaliyowdo ayuu iimaanku u baaliyoobaa buu nebigu sala allahu alayh wasalam ee iimaankiina jadiidiye marka iimaankani wuu baaliyoobaya nebigu wuxuu ihi quluubtii amba yacni qalbigu waxa ku dhaca sada daxal baa ku dhaca daxal mirirka ka jara oo daxalka ka jara oo maxaan kaga jarnaa qur-aankood akhridaan iyo mawdkood xasuusataan buu nebigu sala allahu alayh wasalam egsow daxalkii koray ka daadiya markaa qalbigu uu daxlaya iimaanku shaqu u baahanya in laga shaqeeyo o la nadiifiyo markaa rabbi wuxuu leey ya ayuha aladiina aamanuu aaminuu rumeeya billaahi ilaahay rumeeya wa rasuuli rasuulkiisa rumeeya waalkitaabi kitaabkiina rumeeya alladii kii nazala lagu soo dejiyey yani za-du way shadantay marka waxay kutusaysaa kelmaddaasi inaan mar qura qur-aanku soo degin ee kolba in la soo dejinaayey alladii qur'aankii nazala ilaahay uu kolba in ku soo dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa waalkitaabi kitaabkii halkan walkitaab iyo walkitaab ilan inagu markaynu tafsiirka aynu la qabaynayno waa inaynu yani si cilmiyana meelaha qaar u tilmaano ashan hore iyo ashan dambe raggii af carabiga garanayay asha hore waa alcahdiya asha dambena waa aljinsiya wey asha hore waa alcahdiya al waxaa la hahdaa altaa waxaa la hahda hore alcahdiya waxay tilmaamaysaa kitaab qura waalkitaabi kitaabkii halkii kitaab wey alladii kii nazala ilaahu ku soo dejinayay calaa rasuulihi rasuulkiisa tan kale walkitaab la yidhi ashu waa jinsiya kutubtoo dhan bay tilmaamaysa walkitaaba kutubtii oo dhan xarafkaa yara asha ayaa tilmaamaya inay kutub oo dhan tahay walkitaaba kutubtiina rumeeya alladii kutubtii anzala ilaah uu soo dejiyey min qabli qur'aanka hortii oo maxay ah towraad iyo injiil iyo zabuur iyo kutubtaa rumeeya waman axadka yakfur ka gaalooba billaahi ilaahay iyo wa malaa'ikatii malaa'igtiisa iyo wa kutubihi kutubtiisa iyo wa rusulihi rusushiisa iyo walyowmi alaakhir maalinta dambe arkaanuliimaankii lixda ahaa ayaa shan la sheegay yani iimaan bilqadarkii un baa ka maqan billaah malaa'ikati kutubi rusuli walyowmi alaakhir waliimaan bilqadarkii un baa ka maqan intii kale halkan baa lagu sheegay ilahay wuxuu leeyahay subxaana ninka intaaba ka gaalooba arkaantii iimaanka ka gaalooba faqad waxaa dhaba dalla inuu dhumay uu baadiyoobay dalaalan dhumis iyo baadiyays baciidan fog meel laga soo qabanaya ma jooga buu leeyahay subxaanahu wa tacaala ilaahay markuu intaa tilmaamay munaafiqiintii u gal ina aladiina kuwii cabdillaahi ibnu cabbaas baa wuxuu yihi haadihi alaaya aayaddani waxay aayad u tahay fi lmunaafiqiina munaafiqiintay ka warramaysa iyo aayaadka soo socda ina aladiina kuwii aamanuu alla rumeeyey suma haddana kafaruu gaaloobay suma haddana aamanuu iimaan yeeshay suma haddana kafaruu gaaloobay suma istaaduu kororsaday kufran gaalnimo cabdillaahi ibnu cabbaas iyo mufasiriintu waxay leeyihiin nimanka noocaasi waa nimankii munaafiqiinta kolba halka u roonun bay tegayeen marna nebigay raacayeen mar way gaaloobayeen iyagu kolba halkii dani ugu jirto waa dad danaystayaala kolba halkaa un bay iska raacayaan hadday xagga u caana badinaysa xagga iimaankuna muslimiintay iska sheeganayeen hadday xagga gaalnimada u caana badinaysana xagga gaalnimaday sheeganayeen saabay u noolaayeen mee si kalaba ka dhig ayaddu may tilmaamin un munaafiqe qof diinta gelayo ka baxayo gelayo ka baxayo bay tilmaamaysa bal innagana ku suuree waa mu'min in yarka bacdunbuba kululanaya diintuunbuu caaya uu ka baxay haddana wuxuu leeyahy igama qurunto igama gubato wuu soo laabmay saasay odhan jiray soo maa uu soo laabmay haddana uu soo kala celiyay in yarka bacdi unbu haddana ilaahay iyo rasuulka inta uu isku daray haddana uu soo laabmaya innaa lilah buu leeyahy noloshiisuba waa sidaaba nin dhan oo tukanaya oo cibaadaysta oo caytamayo diin iyo nebi iyo wax lagu gaalooba caayo somadan war maxaa kuu qaatay way iga cadhaysiiyeen bu kule bal qiimo darrida way iga cadhaysiiyeen eeg diintiiba gacan buu ku sitaa marna uu ka baxaya marna uu gelaya marna uu ka baxaya marna uu gelaya waa kan
وكان تضوات بالنوع إلا إن الدين عاي أو إلهي عاي أو قرآن كعاي أو كل دال مسلم معه وابكون كاكلنا بحية كلنا قليل وابكا مجتمعين وبديد ساعات بواسم هذا هو هجاج وكان وأكلته كنية وكبحي وسوق علي وكبحي وصنع وحاول إنه يسوق لي دول إلهي وحط الماما يا مرنا إيمان بولاي مرنا إيمان ملا مرنا وقالوا بي والنوع وحكى لي مفسرين تكت المامين لما كان يهود بينهم وما حيث مين قالوا فيرس إن الذين كوي آمنوا على الرمي آمنوا الرمي مركب بموسى ني موسى الرمي كو ثم كفروا هدنا ويقالوا بين وما حيكون قالوا بين دبي بي عابدين ثم آمنوا هدنا ويرمي مركو صلى بي ثم كفروا هدنا ويقالوا بين وحويان ويقالوا بين النبي عيسى كقالوا بين ثم استاذوا كفر النبي محمد ويقدر صلى الله عليه وسلم فسرين ده بدنا ساسكم فسرين اقوا والسلام عجيبه إن الذين كو آمنوا رمي النبي موسى وإيمان كوري ثم هدنا كفروا قالوا بو دبي عابدوا النبي موسى كقالوا بين ثم هدنا آمنوا ويرميانو دبي جيبه كسر نقدين عبادة ديس ثم هدنا كفروا ويقالوا بين والنبي عيسى أي بينيين ثم ده هدنا استاذوا وحي كرر صدام كفرا قالوا النبي محمد ويديدين صلى الله عليه وسلم إيمانك هو النبي موسى قال لماذا هو دبي جاي عابدين إيمانك الله بعض وصل الله قصير دبي عابد كي كسر الله مين قالوا كلوا النبي عيسى كقالوا بين طبعا قبل الله أنتم والنبي محمد ده خلاص وكسي بهم مفسرين تبرنا سالك مفسرين أنت تفسير ما هو ده صحوي مركي الله سبحانه وتعالى وحط المامهم ضد قاروا مشي يجيني وضد كنا الدين تجليه كنا كبحيهم إن الذين كوي آمنوا على الرمي ثم دنا كفروا قالوا بي ثم هدنا آمنوا على الرمي ثم هدنا كفروا قالوا بي ثم دنا استاذوا كرر صدي كفرا قال نمو لم يكن الله إلهي ما أهان ليغفر لهم يدو الدم دافي ولا ليهديهم يدكو هنونين ينا معها سبيلا جد إلهي جد كي جندا هي طريق توصن هي مال قيمة له مرنا بكم هنونين يا رب سبحانه وتعالى بشري نبي الله واحد وقب بشاريسا نار هي عذاب من بشارة حضون إن أنتو هلع كل يفسي وكل هذا الصحوي وحد لذي يعني دلكو نبا مالها دقدقاتين تورن كي يقول دقدقاتيا درسوا لما ورنتي كان كحنون بدن نيكو أنتو وحكوا يالي ولي بكو قصلي ولي ما أنت لبرك يجتش بس هذه قط عصنا يسوي يعني هو عجيب وعيل لبعض حبكي بالله دقما يايو وحلي بشري فرح قلي وبشارة منافقين حاجة بشارة الله وأورن وي أورن ودل يتهاكم وي ودل إلى بشري واحد أوجيسيسات وشيكتان المنافقين أورك قالوا يدا بأن اللهم إليين عذابا عذاب كاسو أليما وحنوني يبلي رب سبحانه وتعالى وأي منافقين سؤال بايمنس نيول بنيك كلو إيجيا نيول بمد بأم لينيا إلهي تلمان بو سوقبت الذين كوي وي منافقين بعد ويديسان بو رب لي الذين كوي وي أورك قالوا يدو يتخذون يلني الكافرين قال ذا أولياء كوطل يحكت وحي جعلينا من دون المؤمنين تكلك السكو يقول لي قال كعب الصح قال كبه دانو تشرين بلا ما تشرين وارنيكو وابا خير عد هذه أركيد الكعب مريني ميلو البتري ويقول لي الدنيا دنبا قال كبه أبا نفله والنوعه وانين وحكتك دينا يا قالك وحو قيمين يا قالك وحو مؤمن دنك ماله يقول لي كون نجد هبلا مريا هدي الله دون يهودي كا كوتشوغ بكولي مريكا كا كوتشوغ كولي روش كا كوتشوغ كولي غالا كا كوتشوغ كولي واني كان لابتبا وحو كلا سودا وحو جعلي وحو كو هداقيا وحو قيمه مودي وحو اهليه تول كا دغتي غالada ayu ka dhigtay uu labisanayayo inta isjabiyo kulay soo maraykan meehi wakaas wakaawi
iyo faransiisi sidoodaa loo labistaayo sidooda waa noociis xubbigiisa iyo kalgacaylkiisiba waa gaar war ha la isilaaliya baasha ha la isilaaliya qofku de wanaaguu yeelan karaa gaal iyo muslim intiisa wanaagsan qari laguma leh laakiin inaad baasha isaga aad mu'minka kale min duuni lmu'miniin mu'miniinta kale inaad ka xigsiisatid taa lama ogola rabbi wuxuu leeyahy aladiina kuwii yatakhiduuna yeelanayey alkaafiriina gaalada awliyaa xigta ayay ka dhiganayeen min duuni lmu'miniin mu'miniinta kale ka soko iyaga isku gargaarayaan iyaga isku ciidmayaan iyaga isku warramayaan iyaga isku dhuundaloolaan buu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala rabbi wuxuu leeyahy waa yaabe markay gaalka isku dhadhajinayaan ay mu'miniinta ka raacayaan ay xaggooda ismarinayaan ayabtaquuna ma waxay rabaan cindahum agtooda alcisata ma sharaf bay ka rabaan buu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala ma cisi iyo sharaf bay ka rabaan ma waxaad noqotid bay isleeyihin ninka balaha gaalada raacun baa wax noqde eh ma aad wax noqotid bay isleeyihin buu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala waa dhibta maanta ayna haysatay mid walba gaal ba isku nabayaayo nafta u keentaba inuu wax noqdo isleeyihin ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahy fa ina alcisata cisada waxa iskale sharafta lilah ilaahay jamiican ideelkeed se u dhanta ilaahay baa leh ilaahay ninkuu doonuu siinaya mu'miniintuu siinaya rabbi subxaanahu wa tacaala isagaa iskale gaalkaaba uu ka madoobayn rabbi subxaanahu wa tacaala marka ila haddaad cise iyo sharaf doonaysaan cise ma hayaane war ilaahay u soo ciso doonta buu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay markuu intaa ka warramay waxa uu leeyahy waqad nazala calaykum fi lkitaabi an idaa samictum aayaati illah yukfaru biha wayustahza'u biha falaa taqcuduu macahum xataa yakuuduu fii xadiisin gayri ilaahay subxaanahu wa tacaala halkana wuxuu ku caddaynayaa arrin buu ku caddaynayaa ilaahay diinkiisu waa shay aada u qiimi badan weeye ilaahay diinkiisa rabbi baa inoo soo dejiyo inagu addoonsaday waxaa la doonayaa diintan inaan qiimo u yeelno waxaa la doonayaa diintu agtaada inay ku weynaato waxaa la diidayaa diinta inaad ku dheeldheeshod ciyaar ka dhigatid markaasaa ilaahay wuxuu leeyahy war haddaad ilaahay aayaadkiisa aada maqashaan iyadioo lagu dheeldheelayo oo la yaraysanaayo kuwaa ku dheeldheelaya waxba ha la wadaagina ha la fadhiisanina buu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala meel baad aragtay qur-aankaba lagu ciyaarayaba amba lagu dheeldheelayo dheeldheelka soo lama garanayo yacni toocs iyo madadaale iyo riwaayad laga dhiganayo ilahay wuxuu leeyahy meeshaa qur-aanka la yaraysanayo haba fadhiisanina buu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala haddaad se fadhiisataan kuwaabaad la mid tihin buu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala iyagaad la mid tihin haddii la halaagayo waa laydinla halaagi hadday ciqaab lagu soo dejinayo waa laydinku soo dejin hadduu rabbi subxaanahu wa tacaala yani iyagaad la mid tihin hadday gaala yihiin gaalaad tihiin allahu akbar markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanah waqad nasala calaykum fi lkitaab ilaahay kitaabkiisa waxaa idinku soo degay dhexdiisa inaydan gaal la fadhiisanba hadduu qur-aanka ku dheeldheelayo meel diinta lagu ciyaaraayo inaanad fadhiyin baa qur-aanka ku soo degtay eeg suuraddani waa madani qur-aankaa laga warramayaa suuratul ancaam buu inoogu iman doonaa oo waa maki ilaahay muxuu lahaa waidaa ra'ayta aladiina yakhuuduuna fii aayaatina bu ilahay yidhi haddaad aragtid kuwa aayaadka iyaga ku dheeldheelaya faacrid canhum xataa yakhuuduu fii xadiisin gayri iskaga jeedsoo ka tag ilaa intay sheeko kala gelayaan hadday sheekadoodaba diinta iyo dheeldheelkeeda iyo madadaaladeeda ka bixi waayaan iskaga tag waimaa yunsiyannaka shayطaan hadduu shaydaan ku halmaansiiyana falaa taqcud bacda dikraa maca alqowmi اطaalibiin dad daalimiina weligaa ha la fadhiisan buu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala suuratu ancaam baa ku arki doonaa ilahay wuxuu leeyahy aayaddaa baa soo degtay oo waxaanu idin idhin meel ilaahay aayaadkiisa lagu dheeldheelaya ha fadhiisanina yaan laydinku arkin waxaa cajiiba cumar ibnu cabdilcaziiz khaamisu khulafaaءi raashidiin baa la dhaha waa kii shanaad ee khulafaa raashidiinka cumar ibnu cabdilcaziiz oo nin qiimi badana xilligiisi baa nin baa koox baa la soo qabtay waxaa loo soo qabtay inay khamre cabbayeen miis khamre lagu cabbayena ay fadhiyeen waa la jeedalinayaa shaabuug baa la dhacaya karbaash nin baa ku dhex jiray
ninkii baa shaabuuggii laga daayay war muxuu ninkani abaal waxay ninkan isagu khamriga ma cabayn weliba wuu soomanaa miiskii lagu cabayay unbuu la fadhiyeyba cumar wuxuu yidhi isagana ka jaray intaad ka jarteen in leeg oo maxaa daliilaa la yidhi cumarow ilaahay sow muu odhan yacni hadday fadhiistaan innakum idan misluhum lamid baatiin meel ilaahay diinkiisii lagu dheeldheelayo khamre lagu sharaabayo lagu cabbaayo ood iska daawanayso ood la qoslayso ood la fadhiday waa lamida garaaca buuri haye inagu kii diinta caayaan la fadhinaa kii khamrada cabbayaa waan u shushubaynaan la fadhinaa oo xafladii iyo casubadii oo dhan baan isu soo dhex dhignay wax walba waan isku dhex daadinay war ilaahay diinkiisa meel lagu dheeldheelaya iskaga jeedsaa lagu leey iskaga tag hala fadhiisan xataa hadduu shaydaanku ilowsiiyana bacda dikra markaad xasuusato ka bacdi hala fadhiisan buu ku leey rabbi subxaana wa tacaala markaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy waqad waxaa dhaba nazala inuu soo dejiyey calaykum korkiina filkitaabi kitaabka dhexdiisa wuxuu ku soo dejiyey rabbi an idaa samictum haddaad maqashaan aayaat illaah ilaahay aayaadkiisii yukfaru bihaa in la beeninaayo oo wayustahsa'u bihaa lagu dheeldheelaayo falaa taqcuduu ha la fadhiisanina macahum kuwaa la jirkooda xataa yaquuduu ilaa intay gelayaan fii xadiisin war gayrihii diinta aan ahayn innakum idinku idan goortaa diinta lagu dheeldheelaya haddaad la fadhidaan misluhum iyagoo kalaatiin buu leh rabbi subxaanahu wa tacaala war meeshii diinta lagu caayay ee diinta lagu ceebaynayey ee qur'aanka wax looga sheegayey iskaga tag buu ku leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala waqad waxaa dhaba nazala inuu soo dejiyey calaykum korkiina rabbi filkitaabi kitaabka dhexdiisa wuxuu ku soo dejiyey an idaa samictum haddaad maqashaan aayaat illaahi aayaadkii ilaahay oo yakfuru bihaa la beeninaayo laga gaaloobayo in la beeninaayo oo wayustahsa'u bihaa lagu dheeldheelaayo in la yacni waxa weeye lagu dheeldheelaya haddaad maqashaan falaa taqcuduu ha la fadhiisanina macahum macooda xataa yaquuduu ilaa intay gelayaan fii xadiisin war qayrihii aan ka ahayn innakum idinku idan goortaa misluhum iyagoo kalaatiin ina allaha allah jaamicu lmunaafiqiin uurka gaalowyadoo dhan buu ururin iyo walkaafiriina gaalada fii jahannama jahannama dhexdooduu ku ururin jamiican idaylkoodba waayo lianna almar'a maca man axab qofku wuxuu noqonayaa cidduu jeclaado unbuu la mid noqon inagii soo marnay ninkii nebiga u calaacalay ee yidhi nebi allow anuu de camal badan ma hayo wax badanna ma qabto laakiin adaanku jecelay buu rasuulka ilaahay nebigu wuxuu uhi ruuxu ciddii uu jecel yahay unbuu la meel jooga maalinta qiyaama markaa ninkii gaal jecel amba munaafaqa dee gaalkaa unbuu la meel joogaya ina allaha allah jaamicu wuu ururin almunaafiqiina urka gaalowyada iyo walkaafiriina gaaladaba jamiican idaylkood fii jahannama jahannama dhexdeeda ayuu ku ururin rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay hayna badbaadiyo xaqiisana hayna garansiiyo wabillahi towfiiq wallahu aclam sawa ila wajhi almaam